kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba waa subaxnimo axad ah 28 bisha November ee sanadka 2021 idaacadda subaxnimona waxay idin la socodsiin doontaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed oo sheegay in maanta la qaban doono kursiga tirsigiisu yahay hoob 1-3 oo la hakiyay kadib markii cabasho laga muujiyay annagu wixii farsamo aan ka shaqaynayna farsamadii ilaa hadda gacanta ku haynaa annaga isaga iskagama hor imaanin ciddii ay iska hor imaadeen oo uu ka tegey annaga kama jawaabi karin kuwaas maxamed cusmaan jawaari waa noo yimid shaqadii oo nusu maraysa oo ka tegey isagana looma hakinayo waa soconaysaa shaqada deliida cabsi laga qabo in laga qaxo xaafadaha qaar ee magaalada Boosaaso iyo dawladda oo ka digtay arrintaasi Koonfur Afrika oo ka cabatay in la ciqaabayo kadib markii dalkeeda laga helay nooca cusub ee fayraska corona biyo-la'aan baahsan oo laga soo sheegayo degmada Buuhoodle iyo deegaanada hoostaga xilligay biyo-la'aantu dhacdaayo roobkii hore oo kale oo baraagaha qayb wax yar geliyay uunba kii dambana u raacay markaa biyo-la'aan ka jirta deegaanada qayb weliba aan riiga lahayn qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo wararkii cayaaraha ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddan subaxnimo oo ay soo saartay Samiir Cabdullaahi Jaamac balse dhegeystayaal waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da iyo Cabdiraxmaan Cali Dhimbil mahadsanid Kawsar Israa'iil iyo dhowr wadan oo Yurub ah ayaa qaaday tallaabo ay kaga hortagayaan faafitaanka Omicron oo ah nooc kale oo coronavirus ah xilli ay kaliya hayaan hal qof oo soo dhacay haddana Israa'iil waxay qorsheynaysaa inay mamnuucdo soo galitaanka dhammaan ajaanibta muddo 2 toddobaad ah laga bilaabo habeenka Axadda caawa Switzerland ayaa iyana xoojisay shuruudaha karantiil ee dadka safarka ee ka soo dhoofaya dalal badan oo Yurub iyo Afrika Britain iyana waxa ay heshay 2 kiis sida ay xaqiijiyeen waxayna mar kale waajib ka dhigi doonaan in afka la daboosho kolka la raacayo gaadiidka dadweynaha iyo kolka la tagayo dukaamada dhammaan dadka safarka ah ee soo galaya dalkaasna waa inay qaataan tijaabada baaritaan ee lagu magacaabo PCR xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku amaanay Koonfur Afrika oo ah meeshii ugu horeysay ee soo sheegtay in la helay noocan fayras ee lagu magacaabo Omicron inay si degdeg ah adduunka kale ula wadaageen xogta ay heleen dhakhaatiirta halkaas joogta ayaa sheegaya in ilaa hadda noocan cusub uu muuqdo inuu inta badan calaamadihiisu aysan sidaa u sii xumayn inkasta oo faafitaankiisu aad u kordhay kumanandada ayaa isugu soo baxay gudaha dalka Australia iyagoo ka soo horjeeda qorshayaasha lagu doonayo in tallaalka coronavirus lagaga dhigo mid qasab ah dadka barnaamijyadii ugu waaweynaa ee Sabtidii ayaa ka dhacay magaalada Grass mudaharaadadu waxay ahaayeen kuwo nabdoon inkasta oo tiro 150 qof ah ay boolisku xogtooda diiwaan geliyeen sabab la xiriira inaanay maaskiga wajiga lagu daboosho aysan wadan baarlamaan cusub ayaa lagu dooranayaa dalka Kyrgyzstan doorashadan ayaa mid dib loogu celinayo codbixintii sanad ka hor lagu muransanaa taas oo dhalisay rabshado sababay inay dhacdo xukuumadii dalkaasi ka talinaysay boqolaal ka mid ah dibadbaxayaasha deegaanka ee Serbia ayaa xidhay wadooyinka caasimadda Belgrade iyo dhowr magaalo oo kale waxay cambaareynayaan qorshayaasha dawladda ah inay siiso shirkad weyn ee qodam macdanta ee lagu magacaabo Rio Tinto xuquuqda soo saarista macdanta lithiumka ee magaalada Losnica dibadbaxayaashu waxay sheegeen in tan ay wasakhaynayso dhulka iyo hawada deegaankuna uusan ka soo kaban doonin ugu dambeynna haddii dhanka kubadda cagta aynu eegno ciyaartoyda ragga ee ciyaaraha ee kubadda cagta ee kooxda gaar ahaan Palmeiras oo ah koox reer Brazil ayaa ku guuleysatay tartanka ugu weyn Koonfurta America ee lagu magacaabo Copa Libertadores sanadkii labaad oo isku xigta waxa ay garaaceen kooxda Flamengo oo sidoo kale iyana Brazil ka tirsan 2-1 ayay kaga guuleysteen kadib markii la isla gaaray waqtigii dheeriga ah xilligaas oo ciyaaryahan Jefferson uu dhaliyay goolkii muhiimka ahaa ee Changoye ciyaartaasi una sahlayay in Palmeiras ay ku guuleysato koobkeedii labaad 2 sano isku xiga oo xiriir ah mar kale Kawsar Cabdiraxmaan Cali Dhimbil ayuu kaasi ahaa wararka caalamka ee BBC-da ayuu inala socodsiinayay markana dhageystayaal qaybaha kale ee idaacadeena subaxnimo subax wanaagsan mar kale dhageystayaal aan ku bilaabnay guddiga doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegeen in maanta ay qaban doonaan kursiga tirsigiisu yahay hoob 1-3 oo ay hore qabashadiisa u joojiyeen guddiga doorashada ee heer qaran
gudoomiyaha guddiga doorashada ee koonfur galbeed ayaa BBC-da u sheegay inaysan jirin sabab doorashada kursigaasi loo joojiyo maadaama loo maray hanaankii loo baahnaa. kursigan hoob 1-3 ayaa waxaa hore cabasho uga muujiyey gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari. haddaba si aan wax badan u ogaano arrimahaas ayaa waxaan khadka telefoonka kula xiriirnay Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed, gudoomiyaha guddiga doorashada ee koonfur galbeed. Axmed Badar ayuuna u waramay. waxaa jira nidaam iyo habraac lagu heshiiyey oo guddiga maaragtay iyo ay ku shaqeeyaan guddiga siidka iyo guddiga fiidka dhammaantood waxay ka wada shaqeeyaan doorashadan waa wax oo heshiisyo lagu heshiiyey habraaca lagu heshiiyey habraacaas la raacaya habraac siyaasadeeda jiro wax kasto nidaamka oo ay ku heshiiyeen madaxweynayaashii maamul goboleed ay ku heshiiyeen oo ay soo saareen oo habraac loogu magacdaray habraacaasaan maaragtay aan ku shaqaynaynin habraaca wixii oo ogolaanayo waxaa ku jira guddi khilaafaad iyo guddiga fiidka iyo guddiga siidka oo gacanta ku haya hawsha oo maamul goboleed walba jooga annaga waxaan nahay guddiga siidka oo hawshii gacanta ku haya qaladaada iman karo dhibaata iman karto qof la dulmiya iska iman karo wax walba iman karo waxaasoo dhan waa laga taxadaro waxaa loo sameeyey guddiga xalinta khilaafaadka guddi la yidhahdo wixii siidka ay gacanta ku hayaan haddii ay maaragtay ay qabtaan wixii waxa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan maaragtay qolada loo gudbiyo qolada khilaafaadka annaga guddi farsamaan nahay farsamadii aan ka shaqaynaynaa farsamadii wax iska halaabi karaan qofna ma dulminin qofna ma hadlaynin si hawsheen si fiican inuu wax oo maaragtay khilaafaad loo gudbiyey oo hadda noo soo gudbiyana ma jirto marka sidaas darteed qof intuu awooday muqdisho tagay oo yiri maaragtay saara ku dhaceen shaqo laguma joojin karo mana ogolaanayno wixii aan ku heshiino aan ku shaqaynaynayna waa baalmarsan yihiin sidaas darteeda kursiga annaga waxaan ilaaminay beritoole waana qabanaynaa waana soconayaa sifa sharci ah oo annaga aan ku joojin karno haddii qof uu cabanayo oo uu leeyahay kursi wax sharci oo annagu noo soo gudbiyey oo aan taaban kara aysan lahayn inaan joojino qof kale sharci darro ku noqonaysaa oo la dulmi ay ku noqonaysaa in la dulmiyo marka waa iclaaminay waa qabanaynaa ninkii diyaar u oo dokumenti laga haayo haddii aan ka joojino soo cadaysto sidaan ugu joojino gudoomiye hore baarlamaanka Jawhari Umar shalay to hadlay waxa uu sheegay in aad diideen in aad warqadda shahaadada musharaxnimada aad siisaan oo aad ka hor istaagteen arrinta maxaa ka jira ma jiro tafkale ma jiro aad baa uga xumay tafkale ma jirto waraaqda asaga ninkii ugu badan waaye nin da'weyn waaye ninaan ixtiraam u hayno waaye sababo aan u diidno ma jirto oo asaga aan ka qiimo yar ama ka fiican iyo kuwo kaleba waa ay la tartami karaan kuwa la tartamayana waa xaqay u leeyihiin in la siiyo shahaadada asagana shahaadada in la siiyo xaq u leeyahay waa tan sababta aan ku xushmaynayno iyo dadka dhammaan aan xushmaynayno kuraastooda oo aan aaminsanayn inay musharaxiin yihiin lambar 1 aan uga dhigno haddii wax annaga aan qabno annagaa soo shaacinay siyaasad shaqo kuma laha kuraasta si habka waqtiga la shaacinayo maamul shaqo kuma laha annagaa shaacino annagaan maaragtay u garanno dadkii aan isleenahay waa nugul yihiin ama dadkii hore oo ixtiraamka lahaa waaye kuraastooda dadka aan soo horumarin oo dhan sababta aan usoo horumarin jacayl aan u qabno waa isaga hadda haddii wax kale ay dhaceen annaga wixii farsamo aan ka shaqaynayna farsamadii ilaa hadda gacanta ku haynaaye annaga isaga iskagama hor imaanine ciddii ay iska hor imaadeen oo uu ka tegey annaga kama jawaabi karno kuwaas maxamed cusmaan jawaari waa noo yimid shaqadii oo nusu maraysa oo ka tegey asagana looma hakinayo waa soconaysaa shaqada haddii la yidhaha laakiin haddii ka waran kursiga maadaama muran uu ka taagan yahay weli oo uu gudoomiyihii hore sheegayo in laga hor istaagay haddii dib loo yar dhigo maxaa ku jaban oo aad doorashadiisa dib u dhigtaan adiga ma caddayn kartaa inay sax tahay in oo laga hor istaagay kursiga khilaafka iyo dacwadda waxaa ka yaala habraac baa ka yaala habraac hore loogu heshiya jirto criteria lasoo maraa jirto qof walba inuu dacwoodo in wax loo joojiyo maaha criteriyadaas one of this criteria haddii uu fulfil gareeyey waa loo istaajinaya laakiinse maba bilaabinba kriteeriyadii oo maaragta habraaci loogu talagalay mid ka mid ah ma uusan taabanin see loogu joojinayo kursiga dadka dhaliilsan qaabka aad guddiga doorashada ee koonfur galbeed wax u wadaan waxay sheegayaan in galaangal badan doorashadan ay ku leeyihiin maamulka koonfur galbeed gaar ahaan madaxtooyada arrintaa ka waran galaangalka noocee maamulka waa kuwa amniga noo keenay maamulka waa kuwa nala shaqaynaya oo nagu martisooray magaalada amnigeeda ilaalinaya maamulku waa kuwa noo sahlaya waxa is haysta inay bannaanka kusoo xaliyaan maamulka galaangalka xalinta iyo amniga ayna siiyeen galaangal ah mise waxay leeyihiin dad iyaga ay noo soo doorteen aad ka wadaa la dooranaya musharaxiinta iyo guud ahaan dadka koonfur galbeed ee guddigaasi indhaha ku wada haya maxaad u ballan qaadaysaa ma ballan qaadaysaa in doorashadu ay noqon doonto mid xaq iyo xora ku dhacda doorasho daahfuran oo transparency ah oo waxa dhacaya la arkaayo yaan free and fair ah ayaan ballan qaadnay iyadaana wadnaa ibn aadamka ilaahay unbaa qancin kara ibn aadam uu sameeyey dadkoo dhan kama wada qancin karaan
waxaan aaminsanahay waxa aan hawsha aan gacanta ku hayno intii ibni aadan uu qaban karo oo cadaalad ha noqoto hufnaan ha noqoto wanaag ha noqoto intii ibni aadan uu qaban karo uu gaari karo inaan ku dadaalnay oo aan qabanay hufnaanta haddii la yidhaahdo waqtiga haddii la yidhaahdo iyo dadka la dooranayaba marka annaga dad ma dooranee waxaan samaynaa waddaan raacnaa waddada aan ku soconana waddadii laisla ogolaaday waaye insha allah waddadaas waxaynu goyn doontaa hufnaan iyo cadaalad kaasi waxa uu ahaa yuusuf cabdulqaadir maxamed guddoomiyaha guddiga doorashada ee koonfur galbeed oo axmed beder ugu waramayey doorashada kursiga hoob hal eber 3 oo ay sheegeen in maanta ay qaban doonaan markana weli waxaa taagan oo aan xal laga gaarin khilaafka u dhaxeeya xukuumadda Puntland iyo hoggaanka ciidanka PSF iyadoo magaalada Boosaaso laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan wararka ayaa sidoo kale sheegaya in cabsi laga qabo in xaafadaha qaar laga qaxo arintaas oo ay dawladdu ka digtay arintani ayaa imanaysa kadib markii dhawaan uu madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku magacaabay agaasimaha cusub ee hay'adda PSF balse hoggaanka hay'addaasi ayaa magacaabistaasi iyo xilka qaadistii agaasimihii hay'addaasi ee PSF ku tilmaamay sharci darro faafaynta warkaas waxaan goordhow weydiiyey wariye maxamed xasan dhalo oo ku sugan magaalada Boosaaso kawtare waa mahadsan tahay magaalada Boosaaso saaka waan soo marmaray meelo badan oo kamid ah laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay ama 4 beri ugu dambeysay magaaladan waxa ka jirta saameyn ku yeelatay khilaafkii madaxtooyada Puntland iyo PSF ciidamada la yiraahdo u dhaxeeyay ciidamo badan baa magaalada yimi oo labada dhinacba ah sidoo kale to hadalla ayaa dawladda iyo PSF isdhaafsadeen isimadii Puntland oo shalay ka hadlay ma ay sheegin dhexdhexaad inay ku jiraan laakiin nabad ayay ku baaqeen wararku ilaa iyo iminka meelahaas ay marayaan dawladdu waxay ka digtay in xaafadaha qaar laga qaxo waxaana ciidamada PSF ku eedeeyeen inay dhufayso ka qodanayaan xaafadaha qaar markaas maxaad kala socotaa kawtaray shalay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ee gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa waxa uu sheegay in xaafadda la yiraahdo Ridwaan oo ciidamada PSF ku ay ku leeyihiin Harun in ay dhufaysi ka qodanayaan dad la soo xiriiray booliiska ayuu sheegay inay dalbanayaan in la caawiyo oo ay xaafadahaasi ka qaxaan marka ciidamada ayaa ku eedeeyay PSF warka kama ay jawaabin laakiin taliska qaybta booliisku waxa uu sheegay shalay inay jiraan xaafadda Ridwaan dadka qaxaya oo u qaxaya magaalada xaafadaheeda kale maxamed dabcan saaka magaalada ayaad soo dhex martay marka waa sidee xaaladda guud ee magaalada Boosaaso kawtaray saan markii hore ku bilaabay magaalada xaafaduhu inta badan magaalada tani waa magaalo xeeb ku taal oo dadku ay hore u soo toosaan oo waliba gobolka bari ku taal cirifka oo cadceedu mar hore ka soo baxdo marka magaalada sidii loo noolaaba wali nool yahay waa la iska soo toosaya dadkuna waa shaqo tag sideedii baa la isu dhaafayaa gawaarida dekada ku socda iyo kuwa xamaalka ee kuwa shaqada iyo dadka meelaha fiqfiiqaya iyo meheradaha la furayo iyo way ku muuqanayaan laakiin waxa jirta cabsi ay ka qabaan dadku in mar walba ay xabad ka qaraxdo Boosaasana waa magaalo dadku ku badan yahay oo kamid ah magaalooyinka ugu weyn Puntland oo uguna dadka badan marka saaka nolosha sideedii caadiga ahayd bay u socotaa laakiin way jirtaa cabsi dadku ay qabaan sida ay sheegayaan marka dadka la sheekaysa kaasi waxa uu ahaa wariye maxamed xasan dhalo oo ku sugan magaalada Boosaaso oo faafaynta warkaasi nala socodsiinayay aan Facebook markaan fursadda siiyo dhageystayaasheena iyo qodobkaas waxay ka yiraahdeen maxamed caawil axmed oo jooga Boosaaso waxa uu leeyahay cabsida laga qabo in laga qaxo xaafadaha ka agdhow goobaha ay ciidamadu joogaan runtii waa mid jirta oo la dareemayo waxaana loo baahan yahay in laga baaqsado dagaalka markasta laga filan karo magaalada arrinkaas oo horseed u noqon kara buu leeyahay Boosaaso inay noqoto magaalo laga qaxo ciidamadana waa in shacabka laga kor qaada faarax maxamed oo ka soo qoray degmada Balanballe isna waxa uu leeyahay runtii aad baan uga xumahay cabsida ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland waxaan ugu baaqayaa labada dhinac ee khilaafka uu ka dhaxeeyo inaysan dadka barakicinin isla markaana ismaandaafka jira wada hadal lagu dhameeyo baaqa labada dhinacna uu halkaa ka sii socdo hagaag waxay hayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da ee Facebook weli idaacadda subaxnimo ayaad dhageysanaysaan BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba qodobo kale ee inoo soo socdo ay ka mid tahay biyo la'aan laga soo sheegayo degmada Buuhoodle iyo deegaanada hoostaga balse markan Koonfur Afrika ayaa ka cabatay in la ciqaabayo halkii la bogaadin lahaa kadib markii ay dalkaasi laga helay Omicron oo ah nooc cusub oo COVID-19 ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa jeedisay hadalkan iyadoo dalalka caalamka ay dalalka dhaca Afrikada Koonfureed ay ku soo rogeen
xayiraado dhanka socdaalka ah si looga hortago fiditaanka xanuunkan. jimcihii ay ahayd markii hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay walaac ka muujisay faraca cusub ee fayraska corona. faafahinta warkaas waxaa inoo haysa Samiira Cabdulaahi Jaamac. kiisas hor leh oo Omicron ah ayaa laga helay qaaradda Yurub, 2 UK, 2 Jarmalka, halka Belgiumka iyo Talyaanigana hal kiis laga helay. Israa'iil oo iyaduna xaqiijisay inuu kiisaska faraca cusub soo gaaray ayaa go'aansatay in ay hakiso dhammaan dadka ajaanibta ee soo galaya laga bilaabo maanta oo Axad ah. xayiraadaha ayaa jiri doona muddo 14 cisho ah sida uu qoray wargeys laga leeyahay Israa'iil. boqolaal rakaab ah oo ka imaanayay Koonfur Afrika kuwaas oo soo gaaray Netherlands ayaa laga baaray faraca cusub ee COVID-19. qaar ka mid ah 61 rakaab ah oo ay waday diyaaradda KLM ayaa laga helay cudurka COVID-19 waxaana lagu karantiilay meel u dhow eelaboorka Netherlands. inta baaritaano kale lagu sameynayo sida ay sheegayaan saraakiisha dalkaasi. faracan Omicron ee COVID-ka ayaa markii ugu horeysay laga helay dalka Koonfur Afrika 24 bishan. war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Koonfur Afrika ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay xayiraadaha socdaalka ee ay dalalka ku soo rogeen dadka ka soo dhoofay dalka Koonfur Afrika. WHO ayaa sheegtay in toddobaadyo ay qaadanayso in la fahmo faracan cusub ee Omicron, iyadoo saynisyahanada ay ku howlan yihiin in ay baaraan qaabka loo kala qaado cudurkan. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay in aysan weli caddayn sida uu ula dagaalami karo talaalka haatan jira faraca cusub ee COVID-19. It does appear that Omicron spreads. waxa ay u muuqataa in Omicron uu si degdeg ah u faafayo, sidoo kalena ay dadku isu gudbin karaan xitaa iyaga oo 2 jeer tallaalan. waxaa kale oo jirta isbeddelaad aad u ballaaran, taasoo macnaheedu yahay inuu si aad uga duwan yahay noocii hore ee fayraska. natiijadana waxaa laga yaabaa in ugu yaraan ama qayb ahaan ay hoos u dhigto badqabkii tallaaladeenna muddo kadib. Reduce the protection of our vaccines over time. Mr. Johnson ayaa sheegay in ay sii kordhin doonaan tallaabooyinka la qaadayo iyo xayiraadaha dadka soo galaya UK oo ay ka mid tahay in la baaro iyo xirashada maskarada wejiga. aad bay u mahadsan tahay Samiira Cabdulaahi Jaamac oo faafahinta warka ay nala socodsiinaysay. dhanka kale si aan wax ugu ogaano xaaladda guud ee dalkaasi Koonfur Afrika oo markii ugu horeysay laga helay nooca cusub ee fayraska corona ayaa waxaan khadka telefoonka ee dalkaasi kula xiriiray Suldaan Nimcaan Axmed oo ah Soomaali ganacsi ku leh dalkaasi. walaal xaaladda guud ee Koonfur Afrika hadda waa caadi weli sida la socono in muddo ah oo adduunku waxa uu aad mudid in uu hoos u dhacay corona ama COVID-19kii wadanku muddadii 2 sano u dambeysay intiisii badneed wuxuu ku jiray lockdown ama xayiraado ayaa saarnaa heerarkiisa kala duwan oo kolba soo marayay. marka hadda waxaad moodaa inuu ilaa hadda uu ku jiro marxaladihii ugu wanaagsanaa ee xagga xayiraadaha in la wada fayday intoodii badneyd oo ay wax walba sidoodii normalka ahayd intood badan ay ku socdaan laga soo bilaabo ilaa jimcihii ama ilaa khamiistiiba. waxaa la dareemayaa walaac fara badan oo xanuunkan cusub ee hadda noocan cusub ee loogu magac daray Omicron COVID-19 ama caabuqa cusub oo runtii walaac badan muujinaya. sida la socono Koonfur Afrika iyo wadamadan Southern Africa waxa la saaray oo adduunku saaray intiisa badan xayiraado sida wadamo badan oo kamid ah Yurub, Mareykanka oo kale iyo Carabta oo kale wadamo kamid ah sida Imaaraadka oo kale oo maanta arkayni. marka si guud wadamada guud ee saaray waxaa sare u kacaya noo saacad isku sii bedelaysa xaaladda COVID-19 kan cusub oo runtii walaac badan laga qabo. marka ilaa hadda dawladdu waxay ku howlan tahay bal tallaabadii xigtay ay qaadi lahayd. dadkuna kulli walaac badan baa laga muujinayaa oo dhagaha la taagaya. tirada dadka ku nool Koonfur Afrika ee ilaa haatan uu soo ritay noocan cusub ee xanuunka coronavirus waa imisa? ilaa hadda tirada 24 saac ugu dambeysay la diiwaangeliyey dawladdu ay shaacisay waa 3220 qof. waa 24 saac u dambeysay halka tirada guud ay tahay 2,958,548 waa nambarka guud. sidaad hore u sheegtayba dalalka qaar ee caalamka waxay xayiraado xagga socdaalka ah ku soo rogeen dalalka dhaca Afrikada Koonfureed. marka dawladda Koonfur Afrika sidee uga falcelisay tallaabadan ay qaadeen dalalkaasi? waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee wadankan haweeneyda lagu magacaabo Naledi Pandor. wasiirku runtii walaac badan bay ka muujisay arrintaasi wayna cambaaraysay waxayna
tilmaantay arrin aan maaragtay lagu degdegay dowladdu inay ahayd in baaritaan saxa la sameeyo oo inta laga xayiraad waddanka laga saari lahaa la godoomin lahaa in baaritaan intaa ka ballaaran in la sameeyo inay ka muhiimsanaan lahayd marka dowladdu markii hore arrinta si adag bay uga hadashay uga soo horjeedsatay oo cambaaraysay arrinta tallaabada ay qaadeen wadamada qaarkood ee waddankan xayiraadda lagu soo rogay marka ma jiraan xayiraado ay soo rogtay dowladda koonfur afrika ama tallaabooyin kale oo ay qaaday maadaama xanuunka markii horeba laga soo sheegay dalkaasi dowladdu weli maynan wax tallaabaa qaadin sidaan la socono xanuunku dhowaan ayaa la ogaaday inuu xanuun cusub uu jiro oo welibana maaragtay si heer sare ah oo u socda waxay ahaydun arrintu bilowgeedii inta la ogaanayay jimcihii bay ahayd dowladdu runtii waxaa saadaalinaya inay dhowaan qaado oo uu madaxweynuhu ugu horreyn hadlo oo ay dowladdu tallaabooyin arrintan laga hortegayo inay qaado hadda nambarka ugu badan waxaa laga soo sheegayaa gobolka Gauteng oo ah in caasimada waddanka laga maamulo marka waxay u badan tahay in xayiraad kala waddanka gudihiisa inay dhacdo oo gobolada qaarkood inay isku safrin oo kale in la soo rogo kala xayiraadii oo intooda badan hadda dhawaan la fayday marka xayiraad culus baa ayaa runtii la sugayaa oo dadku inta badan dhagtii taagayaan marka waxaa laga warsugayaa guddiga arrintaasi ku mashquulsan iyo dowladdu bal tallaabada ay qaadi doonaan waxay noqon doonto kaasi waxa uu ahaa Suldaan Nimcaan Axmed oo ah Soomaali ganacsi ku leh dalka Koonfur Afrika oo iga waramayay xaaladda guud ee dalkaasi halkani waa BBC markana wararka ka imanaya deegaanka Buuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa sheegaya in degmadaas iyo deegaanada hoostaga ay ka jirto abaar iyo biyo la'aan baahsan taas oo saameysay dad iyo dunyaba biyo la'aanta ayaa timid kadib markii ay biyo yareeyeen baraagaha biyaha laga cabi jiray oo inta badan ku tiirsanaa biyaha roobka Khadiija Axmed Aadan waa maayarka degmada Buuhoodle khadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxayna iga warbixisay xaaladda biyo la'aaneed ee ka taagan degmadaasi xaaladda deegaanka ka jirta walaal haddaan kaaga warramo deegaanka waxaa ka jirta abaar ba'an abaartaas oo ay wajahday biyo la'aan deegaanka ka jirta deegaanka riigad bay leeyihiin riigada maxaytoy ayaa la isugu wada tigay oo biyaha laga cabayaa dadka qaydina way ka fog yihiin dadku waxay u badan yihiin baraagahan noqoto iyo ceelasha shubaasha ah ee maaragtay xilliyada roobka biyaha keena xilliyada abaartana yareeya ee go'a marka halkaa waxaa ka jirta abaar aad u ba'an oo biyo la'aaneeda hadda kamaayar ahaan iyo golahayaga deegaanka waxaanu diyaarinaynaa si aanu dadkii ugu gurmano oo aanu u samayno biyodhaan mar horena waanu samaynay haddana waan ku tala jirnaa inaanu biyodhaan dambe samayno oo dadka ka fog riigaga aanu biyaha uga doono uga soo qaadno si aanu ugu keenno oon dadkii iyo xoolihiiba aanu ku waraabino abaar baad soo hadal qaaday iyo inay biyo la'aan jirto xagga baadkana ka waran xagga baadka dee kulle abaari way jirtaayo male abaara baad lafle lama jiro xoolihii biyo la'aan iyo maxay tahay cunto la'aan labadaba way soo wajahday asii darnaatay biyo la'aantii marka dhibaatadan biyo la'aanta ah gormay soo bilaabatay dhibaatada biyo la'aanta hadda muddo waxaa laga joogaa roobka 5 bilood abaartii baa hadda 5 bilood maraysa awal abaartii 3 bilood iyo waxaa ahaan jirtay 2 bilood ee dambe aad bay abaartii maxay tahay waddanka uga jirtaa biyo la'aantuna sideeda waa xilli bay biyo la'aantu dhacdaayo roobkii hore oo kale oo baraagaha qayb wax yar geliyey unba kii dambana u raacay markaa biyo la'aan ka jirta deegaanada qayb weliba aan riigaga lahayn marka degmada Buuhoodle markaan eegno waa kuwa meelaha ugu daran ee ay biyo la'aantu ka jirto degmada Buuhoodle meelaha badan Buuhoodle soo u badan yahay gabi ahaan soo biyo la'aan badan baa ka jirta hadda deegaanka magaalada la yiraahdo Balle Cad oo kale meesha la yiraahdo Balle Calanle gudahan hadda Buuhoodle hareeraheeda sida magaalada la yiraahdo Qarasa iyo xaggan way ka jirtaa biyo la'aantu riigada ahaadeen dadku riigadiyo wixiiba markii la isugu tago way biyo yaraynaya awal hore dadka deegaanka xagee biyo ka heli jireen waxay biyaha ka heli jireen baraagaha waxa la yiraahdo baa u biyoobi jiro roob biyeeyo iyo ceelashan sida roobka maxay tahay ku biyooba ee la shubaasha la dhaho markay abaarta baani dhacdana way biyo yareeyaan hadda marka biyaha xagee ka helaan waxaa hadda biyaha laga helaa riigad aad uga fog oo dadkii aysan awoodi karin hooyadii waxay ku maraysaa $300 dadkii danyarta ahaane ma awoodi karaan adiga mas-uuliyiinta deegaanka ayaad ka mid tahay dadka ay dhibaatada biyo la'aanta haysato ilaa hadda maxaad u qabateen
dadka aan kuu sheegay waa dadka aan biyadhaanka u samaynay matalan aanu riigaga uga soo qaadnay biyihii u keennay deegaanka dhowr meelood baan biyadhaan ka samaynay haddana waanu soconaabo gacantaanu ku haynaa inaan biyadhaan u samayno intaa marka ma ku filan tahay mada kuma filla dadku aad buu biyelaya ilaahi subxaana watacaala soo waraabiyo mooyaane dabeedna waxay noqotay in dadkii danyartaa aanu wixii aanu gaadhsiin karno biyihii gaadhsiino annagu waanu maayar ahaan ama kala deegaan ahaan aanu biyihii u qaadno dadkii haddana biyadhaan horena waanu samaynay haddana waanu u soconaa inaanu samayno xukuumadduna way samaysay marka ka maamul ahaan marka qorshihiina muxuu yahay si dadkaasi ay biyo u helaan ka maamul ahaan iyo xukuumadduba qorshaha iyagu wuxuu yahay dee inaan dadkaa biyadhaan u samayno oo aanu biyo u raadino haddii ay xaaladda sidan kusii socoto maxaa dhici kara hadday dee xaaladdu sidan kusii socoto kulle khatar badan oo dee biyalaanta baa soo wajahaysa laakiin waa loo diyaar garoobaya dee hayadaha iyo dawladduba waa u diyaar garoobaysa haddii ilaahay ka dhigo kulle haddana waanu u wadnaa dee laga hari maayo khadiijo axmed aadan maayarka degmada buuhoodle ayay taasi ahayd oo iiga warramaysay biyo-la-aanta ka taagan degmadaasi markana wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa galinkii dambe ee shalay gaaray magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda Gooni-sutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland wasiirka warfaafinta ee Somaliland ayaa BBC-da u sheegay in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiinta Somaliland ay ka wada hadli doonaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimo dhowr ah sida arrimaha nabadgelyada iyo ganacsiga haddaba faahfaahintaasi dheer waxaan weydiinay Saleebaan Cali Koore wasiirka warfaafinta ee Somaliland khadka telefoonka ayuu ugu warramay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xaaji Cadow marka ugu horeysa horta safarka madaxweynuhu ku yimid jamhuuriyadda Somaliland wax kale ma aha waa safaradiisii hore ayay daba socotaa iyo casimaado ay kala heleen madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland ayaa wuxuu tegey markii la caleema saarayey kabacdina isafkarad iyo halkaa lagu soo dirtay ayay daba socotay iyo sida uu madaxweynaha kelinka shanaad sheegay baa arrimaha geeska kusoo kordhay ayaa ay ka mid tahay ganacsiga iyo nabadgelyada iyo howlahaas ayaa laga wada hadlaya waa gartay sida aad adiguba ka dhawaajisay arrimaha geeska oo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha hadda ka taagan geeska Afrika dagaalka ka socda Ethiopia marka ma laga yaabaa arrintaas inay ka wada hadlaan labada mas'uul arrimaha ilaahay hadda laga wada hadlaya waxa weeye nabadgelyada laga wada hadlaya waa xuduudaha u dhexeeya dowlad deegaanka Soomaaliya iyo jamhuuriyadda Somaliland oo horeba u lahaa coordination iyo wada hadal iyo xiriir rasmi u lahaa ee aan ahayn wax hadda bilaabmay Saleebaan Cali Koore wasiirka warfaafinta ee Somaliland ayuu ahaa oo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow u warramayay ciyaarihiina markaan haddii aan eegno maanta waxaa jira kulan aad u xiiso badan oo la wada sugayo kaas oo 7:00 fiidnimo ee saacadda Afrikada Bari dhex mari doona kooxaha Manchester United iyo Chelsea 5 galabnimo oo gow ah waxaa sidoo kale ay Man City soo dhaweynaysaa West Ham United isla waqtigaas waxaa wada ciyaari doona Leicester City iyo Watford halka Brentfordna ay la balansan tahay Everton dhegeystayaal waxaan intaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan idaacaddeenni subaxnimo Samira Cabdullaahi jaamacay soo saartay anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi aan idinla socodsiinayay tan iyo kulankeena xiga 2 duhurnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo